Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in dad looga shakisan yahay cudurka coronavirus la karantiilay. Guddiga ay dowladda Soomaaliya u xilsaartay cudurka coronavirus ayaa maanta waxa ay ka warbixiyeen howlaha guddiga iyo waxyaabihii ku soo kordhay maalmihii ugu dambeeyay cudurka coronavirus. Guddigan ayaa waxay idaacadda Kulmiye uga warbixiyeen in tirada dadka laga helay cudurkani Soomaaliya iyo in ay hadda gaareen ruux sida ay inoo xaqiijiyeen Dr. Cabdirashiid Yuusuf oo ka mid ah guddiga arrintan loo xirsaalay. Sidoo kale waxa uu sheegay in 15 qof oo looga shakisan yahay cudurkani ay haatan karantiil ahaan ay ugu jiraan isbitaalka weyn ee Martini oo ah halkii hore ee dowladdu ay ku dhawaaqday inay ugu talagashay in lagu karantiilo dadka qaba cudurkan coronavirus. Arrintani ayaa waxa ay ku soo aadaysaa xilli ay dowladda hore xayiraad ay u soo rogtay dhammaan howlihii shaqaalaha dowladda, waxbarashada iyo duulimaadyada caalamiga ah cabsi laga qabo cudurkani dilaaga ah ee coronavirus.